maanta waa ku faraxsan yahay waa qalan jibiyay shahaadada waa qaatay. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada madax ka socotay dawladda Victoria iyo madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee Melbourne ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyay gabdho Soomaali iyo Afrikaan oo dhameystay tababar la xiriiray sidii ay uga mid noqon lahaayeen hogaamiyaasha mustaqbalka. waxaana tababarkan bixisay hay'adda shaqo-gelinta iyo xirfad u samaynta haweenka ee Australia oo ay maamulo ka tahay Xalima Kaaraan oo kamid ah dumarka ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo horumarinta mustaqbalka haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Melbourne. barnaamijkan aan qabanay wuxuu ahaa leadership young girls leadership course wuxuu ahaa barnaamij aan aad iyo aad ugu barnay muddadii yareed oo ay baxbaranayeen gabdhahaas waxaan rajaynaynaa inay already hore u sii ambaqaadaan ama ay sameeyaan sidii ay u gaari lahaayeen level ee iyagu waxay soo barteen ay u gudbiyaan gabdhaha dhalinyarada ah oo kaleeto. gabdhahan oo badankood ku dhashay Australia ayaa aad ugu riyaaqsan tababarkan ay qaateen. Assalamualaikum magacayga waxaa la dhahaa Najma maanta waa ku faraxsanahay inaan dhameynay leadership program keena sameynay 5 bilood waxaana la siiyay shahaadyaal oo qurux badan. Alright, so today I graduated from the Women Empowerment Program and I'm excited to see what the future has in stake. I really am committed to this and I really love this opportunity. madaxda jaaliyadda Soomaalida oo iyana ka qayb galay munaasabadan ayaa ka waramay ahmiyadda ay u leedahay gabdhahan inay tababarkan dhameystaan. aad baan ugu faraxsanahay in dhalinyaradii ay maanta waliba gaar ahaan dumarkii gabdhaheenu ay barnaamijkan ka qalin jabiyeen waxaan rajaynaynaa inay noqdaan mustaqbalka hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ama Australia ee wadanka ku dhaqan. maanta runtii wax lagu farxo waa halkaan aan isku nimid women's leadership graduation ee Xalima Maxamuud ay soo qaban qaabisay hay'adeeda. barnaamijka wuxuu aad ugu fiican yahay iyadoo hoggaanka la baray dhalinyarada Afrikaanka haddana ayaa wuxuu siinayaa platform ay ku hadlaan dhalinyaradeenna badan ama helaan chance ay ama iskuulada markay dhigtaan ama jaamacadaha dhigtaan waa dad minority ama helaan chance ay ku hadlaan oo fikradahooda iyo waxay aaminsan yihiin ay ku soo gudbiyaan. sidoo kale asxaab iyo waalidiin ayaa iyana goobta ku sugnaa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay graduationkaas inaan ka qayb galnay garanaysa qalin jabintaas marka anagu oo qaarkayga waalidkii yahay walaalihii ah dadkii ehelkii. barnaamijka maanta wuxuu ahaa barnaamij aad u qiimo badan oo dad community-ga aad qiimo badan uga leh ee ka soo shaqeeyeen oo liidaro in lagu daydo ah. waxaan leeyahay Daxaliimo khayr badan Allah ku siiyo sidaad ugu istaagto ummadda Soomaaliyeed waxaan ku leenahay thank you very much Daxaliimo annaguna waa inaan ka faa'iideysanaa Daxaliimo. ugu dambeyntii waxa ay gabdhahani soo bandhigeen ciyaaro hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. injineer Cabdulaahi Aadan ayaa munaasabadan kaga qayb galay agabka dhaqanka Soomaalida uu ku keydiyo Australia. barnaamijkan ayaa anigana markaa daraadeed waxaan u keenay si ay carruurta gabdhaha dhalinyarada iyo dhalinyarada wiilashaba ay u iloobin dhaqankooda ayaan waxaan u keenay qalab fara badan oo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ah. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. 12 gabdhood oo kamid ah gabdhaha halkan ku dhashay amba ku koray ayaa barnaamijkan tababarkiisa ka qayb qaatay muddo gaaraysa 5 bilood waxaana la soo gabagabeeyay maanta oo halkan lagu guddoonsiiyay abaalmarin shahaadooyin. gabdhahan waxa loo tababaray inay noqdaan hogaamiyaasha mustaqbalka. Ibrahim Umar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia.